daawadayaal waqti xaadirkan waxa barbarkayga taagan siyaasi Nuuruddin Ibrahim oo Cabdi Diini siyaasi Nuuruddin Ibrahim oo Cabdi Diini waxa uu xog rasmiya uu ka hayaa halka uu waqti xaadirkan dabka uu marayo iyo goobaha kala duwan ee uu saameeyay dabkii ka kacay suuqa Waaheen Nuuruddin lugtaanaad socoto waxaad ka timi goobihii kala duwanaa ee uu dabku ka kacay iyo meesha uu waqti xaadirkan marayo maxaad xog buuran oo aad rabtaa in aad bulshadii maanta la wadaagto maanta jimcaha ahayd habeenimo sabti ahayd rabadaan baan sugaynay masjidka suuqa bartigiisa ku yaalay calimataan salaadii cishaayo ku tukanay salaadii cishaayo dib baa loo dhigay marka cabaar 8 iyo 20 daqiiqo meelaha markaanu ka baxnay ayaana loo sheegay inaan rabadaan hayn markan marayo bangiga dhexe hortiisa ayuu dabkani bilaabmay kadib dib baan u noqonay dabkani meherad kaliya ka bilaabmay oo bartanka suuqa ku taala halka dardhiga u dhow waliba qof kasto reerkiisa uu garanaya dabku halku ka bilaabmay waxa la igu tilmaamay markii aan gali kari weynay sariibadii dhismihii sariibadii Waaheen originalka ahayd koonfurteeda oo xagga dooxa xiga halku imika marayaana bari wuxuu xigaa masaajidkii Cabdiraxmaan Garyare ama Masjid Nuur mise jaamicii buu ku baxaya iyo sidii sandarka dabadiisa galbeedna wuxuu soo maraya Daar Salaam iyo Talisom luuqi ka dambeeyay wadadan waqooyi number 1ka sekada dhismaha uun baa ka haysa ee dabku dusha uga soo talaabay koonfurna wuxuu marayaa Masjidul Nakhiil indha deero uu dhaafay bakhaaradiisii in allaaliye intii wadooyin halkaasi ahayd wixii alaabta lay meesha mashaqqa ka dhacay dabka waa lagu shufeelay xaaladdu imika markastaba uu sii kordhaya dabkaasi xal lagu baqtiin kara ilaahay roob shuba mooyaane halka ma yaalo oo kama muuqdo awoodii dawladda wuu dhaafay tii dadka wuu dhaafay waa in gubatay Hargeysa caawa iyo in lala carreeyo gacmaha lagu sido qaxootinimo ka dhacday anigu intii aan inta leekaa ama aan garaadsanayay qasaaraha caawa Hargeysa ka dhacay waxaan ku qiyaas garan maayo waxaan ku qiyaasi karaa 9 November dagaalkii Soomaaliya Hargeysa ka bilaabmay ayuu maanta dabkaasi la mid yahay sababtuna wax kale ma aha dadka suuqa degani iyaga iska xidhay wadooyinkii eed ugu weyn iyaga leh dawladna lama eedayn karo cid kale lama eedayn karo haday dabdamiskii tahay iyo haday dawladii dhexe gurmanaysa tahay iyo haday dawladii hoose tahay meel allaaliye meel gargaar iyo gurmad loo mariyo waa la waayay suuqaasi wuxuu leeyahay ugu yaraan dhowr iyo 10 wado oo bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur intaba u socda wixii way wada xidhan yihiin way degeen iyaga ku ganacsaday marka xaaladda caawa Hargeysa ka taagani waa mid lagu caydhoobay ilaahay umada hawsala gargaariyo waxa kale oo jirta albaabadii baa wada gubanayay imika suuqu wuxuu lahaa albaabo laga soo galo ama laga baxo khadimadaasi maadaama ay gubanayaan dadkii ku dhex jiray meel ay ka baxaan ma jirto inta dhismayaasha ku jirta mooyaane inta banaanka joogaana waxaan qiyaas karayaa naf iyo moodba in halka lagu baabay suuqaasi dardhiga Masjid Nuur city centerkii Talisom ilaa iyo Masjidul Nakhiil inta ka dhaxaysa qofkii garanay reerkiisii uu garanaya intaas way gubatay marka dardhiga waxa weey waa Umar bin Khadaab iskuulka Umar bin Khadaab waa Umar bin Khadaab iyo dabadiisa dardhiga hadaan dadka u sharaxo waa barta ay iska galaan suuqa khudradda dharka iyo hilib halka ay ku kulmaan baa dardhiga leeyahay dardhiga wixii xaggan uga baalayana waa dooxiyun ee koonfurka xiga wax kale kama xigo marka hadaan si kala u dhigo dabkaasi wuxuu ku simayay dooxa wixii ka xiga waqooyi wadada number 1 kana ka xiga koonfur Talisomna ka xiga bari galbeedna ka soo xiga mise jaamaca inta ka siman ayuu dabkaasi imika maraya ololkiisna waa ka halka inooga muuqda aynu hadda arkayno marka meesha waxa ka dhacday rogmad baa ka dhacay waa lagu caydhoobay ilaahay dadkii hantida lahaa iyo dadka reer Hargeysa umada muxsiniintaaba waxaan uga baryaynaa caawinaq iyo wax ka khayr qabayno siiyo ilaahay waxaynu weydiisanaa biluu raxmaadkiisa inoo shubo oo halka ku baqtiyo Nuuruddin markaad xoggaal aad xogtii doontay suuqa aad soo wareegtay maxaad ogaatay in dabkani uu ka bilaabmay muxuu dabkani ka bilaabmay hal meherado kaliya ka bilaabay nin la ilaakiiso Umar Xaashi oo si fiican u garanayo oo hooyadii suuqa meherad ku haysa wuxuu igu yiri hadaan dadka reer Hargeysa si sax ah u tilmaamo meheradii hooyadii oo nin la yiraahdo Mawlid oo suuqa aad ganacsiga xamaamkiisa u dhow xamaam baa suuqa bartingiisa ku yaala sariibada dabadeeda oo koonfura anu suuqa waan joogi jiray oo ka shaqeyn jiray marka waxa weeye marka xitaa bacalayaasha la dhaafo meherad halkaasa ayuu ka bilaabmay buu igu yiri marka wuxuu igu yiri tii hooyadii waxba laga ma hayo kayso Umar Xaaji wuxuu igu yiri tii hooyadii waxba laga ma hayo halka markaad ka qiyaas qaadato waa 3 sakadood ba ka dambeeyo dooxa ka xiga uga soo kac hadaan cabir ahaan qiyaaso
wuxuu noqonayaa dabkaasi 5 kilomitr isku wareeg 5 kilomitr isku wareeg inta gudaha inuu cabir ahaan dadka u qeyb dadka reer Hargeysana way garanayaan waa inta ka dhaxaysa dooxii number 1ka mise jaamaca barina uga rogo saldhiga dhexe intaasuu dabkaasi maraya khasaaraha halkaa ka dhacay lama qiyaasi karo hantida ugu badan in reer Hargeysi waxay taala suuqa waaheen ama dadka reer Soomaaliland suuqii waaheen caaw shufeele meheradii waaweyn dhismayaashii waaweyn ku jiray ee wadada number 1 ka saarna ayuunba ka badbaaday xaaladaas waa xaalad adag caawna lagu kala seexan maayo dawladuna gurmadkii bay wadaa laakiin xaalad ay dawladdu wax ka qaban karayso xaaladani ma aha waxaanan dadkan halkan fariin gaar ah uga diraya dadka waan ogaayo in badan baa la yiri wadooyin baneeya iyaga diiday marka wax aanay gacmahooda masiibo aanay gacmahooda ku saabsani ku kasbani horta caawa kuma dhicin in badan baa suuqa wahan xal loo waayay dhaxalkii kanuu noqonaya qofka muslimkaana god laba jeer lagama wada qaniino marka maanta halkaa waa lagu ceyroobay si aan mar dambe loogu ceyroobin Hargeysa waxay u baahan tahay in la fidiyo oo suuqa laga sameeyo aad baa u mahadsantahay daawadayaal wararka kale ka soo kordha dabka suuqa waaheen ka dhacay waxaad kala socon doontaan MMTV aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa Nuuruddin xogta telefishinka siisay insha Allah